waxaan leeyahay maamulka caasimadda ee ugu horeeyay guddoomiyaheeda qorow haddii aan dabdamis la helin waxaan shacabka haddaan aan codsanaynaa inaan hal meherado kamid ah aan la furin magaalada madaxweyne qorqor waxaan leeyahay xamalaad jirtaa haddaan dabdamis loo soo dhiibin han lagu soo noqon subaxnimadii hore ee saaka iyo dab xoogan oo ka dhashay kaalin shidaal waxa uu ka kacay magaalada Dhuusamareeb dabkani oo ahay mid aad u xoogan ayaa geystay qansaare hantiyadeed waxaana dabintiisa ka qayb qaatay bulshada caasimadda ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyagoo adeegsanaya gaarida loo yaqaan cagafta booyado iyo baaldiyaal carro lagu shubay qaar kamid ah bulshada ka qayb qaadatay daminta dabkani oo warbaahinta la hadlay ayaa madaxda Galmudug ku eedeeyay in ay ballanqaadyadoodii ka gaabiyeen loona baahan yahay in isku tashtaan bulshada oo ay si sugan mas'uul iyo maamul toona maanta ma ahan maalin hadal laakiin nafta iyo qiiradana haysta ayaanan hadli karin laakiin hadda dhuuxay wax laga baxayo dhididka naga baxayo saaga dabkaas dad badan ma ku baabeen hantoodii waa ku waayeen dukaamada maanta gubta waxa yaala 300 oo dukaankiiba dabdamiskana wuxuu joogaa $60,000 haddana bulshada danyarta ee deegaanka ku nool dabka waa meeshii saddexaad oo gubata waxa gubata saddex ajibay maray ajibtii waxa taa lacag 300 kuna waxaan leeyahay maamulka caasimadda ee ugu horeeyay guddoomiyaheeda qorow haddii aan dabdamis la helin waxaan shacabka haddaan aan codsanaynaa inaan hal meherado kamid ah aan la furin magaalada dukaanka ugu yar ee qudaarta lagu gado haddaan afar bari dabdamis lagu keen in midka qudaarta lagu gado aan la furin waxaan bulshada leeyahay sida aad saaka u shaqeeyeen waligiin u shaqeeya ha u istaagnaada laamiga aan dhisano dabdamis aan gadano meeshan cid kale haddaan anagu aan shaqeysan cid naga soo gaaray lama arko waxaan u sheegaa shirkadda Hormuud iyo Dahabshiil deegaanada kale ka jirtiin dabdamisyada gadeen annagana waan naqartay hal wadan noo maana lisin waxaan shacabku sheegayaan ka codsanayaa inaan ku ballaabaxno shirkadaha waaweyn madaxweyne qorqor waxaan leeyahay xamalaad jirtaa haddaan dabdamis loo soo dhiibin han lagu soo noqon waxaan codsanaynaa anigoo guddoomiyaha ururka haweenka caasimadda ah waxaan codsanayaa oon cod dheer iyo cod gaabanba ka codsanayaa magaaladan dadka u dhashay oo magaaladan u dhashay inay sameeyaan hanti aruurin si loo sameeyo in la sameeyo ii sheeg maxaan ku yiraahdaa dabdamisyo la sameeyo dawladda federaalka iyo dawladda Galmudugna waxaan ka codsanayaa inay caasimadda badbaadadeeda ay ka qayb qaataan horta dabkan kaliya ma dhicin halkaas waa ka dhacay maalin dhaweyto halkan wuu ka dhacay tii saddexaad aan taaganahay waxaan u sheegaynaa dadweynaha iyo dadka mutadiciinta inay u soo gurmadaan gobolkan dawladda federaalka Soomaaliya iyo Galmudug inay u soo gurmadaan maanta meeshan qasaara ka dhacay qasaarahaas inay ugu soo gurmadaan arrintaana wax laga qabto waa dabkii saddexaad oo meeshan ka dhaca waay intaan u goobjooga u ahaa waxaan u sheegayaa dadka mutadawiciinta iyo dadka waxgaradka iyo dadka intida Ilaahay si inay damdamis magaalada u gadaan oo la isku tashado oo macnaha isku tashanaan doonaynaa gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow oo goobta uu dabka ka kaxay saxaafadda kula hadlay ayaa bulshada iyo maamulka ugu baaqay dhankiisa in ay iskaashtaan si loo helo dabdamisyo dadku waa fiican yihiin wax dhintay iyo wax dhaawac midna ma jiraan laakiin hanti badan ayaa runtii baabaaday kaalin shidaal oo weyn ayaa dab ka kacay guriyihii ku hareereysnaa oo dhan waa gubteen qaarna annaga duminay hadda waad arkaysaan intaan gadaalo dhan annaga duminay oo waxaan ku cagafaan ku amarnay in la dumiyo dabka hadda waa joogsaday hadda qasaaradu maaliyaadnooma runtii ma noo tirsana inta dhibka la eg oo gaaray laakiin qasaaro naf oo dhimasho ama dhaawac ma jiraan alxamdulillaah laakiin waxa runtii xusid mudan 40 habeen ka hor ayaa dabkan oo kale sidoo kale ka kacay meeshan kaalin shidaal ku taalay hanti badan gubatay waa qayla dhaaminay dadka ganacsatada ah oo magaalada degan iyo dadka deegaanka daneynaya intaba waxaan niri dandamis waa inaan helno laakiin nasiib darro dadku inay wax dhisaan guriga iska sii dhisaan ayaa u fudud maahane inay guriyaha wixii wax looga qaban lahaay ay bixiyaan uma fududa ugu dambeyn taliyaha booliska caasimadda Dhuusamareeb Nuur Cilmi Maxamed ayaa sheegay in wax ganacsi ah oo si firi ku shaqay doona aysan jiri doonin ganacsatadana loo baahan yahay inay isxilqaamaan inta aan goobahooda ganacsi la xirin waxaan aad ugu mahadcelinayaa marka bulshada ka qayb qaadatay iyo kaalinta ay ka qaateen ciidamada booliska iyo militariga iyo nabad sugidda dhamaantood iyo maamulka degmada kaalinta ka qaateen mahadcelin kadib waxaan leeyahay sanadkan gudihiisa markii saddexaad Dhuusamareeb dabka noocaas oo ka kaca waaye waa lagu waana qaada waaye kuwii hore waxaan rajaynayaa ganacsatada reer Galmudug ama gaar ahaan reer Dhuusamareebeed inay ku qoys qaada doonaan ay ku waansami doonaan maanta mid dhacday oo runtii aan aaminsanahay inay tahay qasaaro Ilaahayna naga soo gaaray laakiin halis weyn ku ahayd dhammaan reer Galmudug iyo reer Dhuusamareebeed waxaan rajaynayaa
inay mar labaad dib isugu laaban doonaan oo maalin kasta 100,000 inay gubato ay ka dooro doonaan inay maalin kaliya ay 100,000 huraan oo ay ku gataan dabdamis waliba waxaan halkan hadda ka sheegayaan ka cadeynaa ganacsi shaqay doona oo firi isaga shaqay doona inuusan jirin oo talaabo ka qaadi doono aan xiri doono hadii ay ayagu talaabo qaadi waayaan anagu aan talaabo ka qaadi doono intaanaan awood adeegsan aanan baalkii muxuu ahaay aanan anagu u soo istaagin inaan ayaga qasabno ayagu waxaan leeyahay hays qasbaan ayagu hays warsadaan dib ay isugu laabtaan talaabana ha qaadaan ayagu laga bilaabo berri subax waa inay iswarsi iyo talaabo ay qaadaan oo ay isugu yimaadaan sidii ay barnaamijkan oo kale inuusan dhicin ay uga hortagi lahaayeen aad iyo aad waa markii saddexaad ee sanadkan gudihiisa dab noocaane oo kale isla markaana ka dhashay kaalin shidaal oo ka kaco magaalada Dhuusamareeb Leila Cali Cabdileele Dheeman TV-ga SDN magaalada Dhuusamareeb